الرحمن الرحيم halkan u baad health cooking weeye asxaabta nagu cusub soo dhawaada dadkii hore nala joogana waa mahadsantihiin maanta waxaan ka hadlaynaa miraha almondka la yiraahdo mirahaas oo aad iyo aad u caafimaad badan lowskii iyo cibtii maxaan ku raahdaa wadankeena oo la jira bay la group yihiin iyo kuwa kale oo cashew la yiraahdo bay isku group yihiin marka maanta mirahaas baanu ka hadlaynaa haddii ilaahay idmo mirahaas waa miro aad iyo aad faa'iido u leh dadkii haystaan maanta xoogaa aan oga faa'iidadiisu sheegnaa geedahaas buu ka baxaa intaas leeg oo aadka waaweyn oo la harsado uu ka baxaa wadamada America iyo wadamadaas ka baxaa anaga wadankeena kama baxo hadduu ku yimaadana qaali buu ku yimaadaa marka waa miro yaab leh saas u baxayaa qolof adag buu leeyahay sidii cibto kale oo kala fuqayaa ilaahay baa dhowr qolfood baa isaga sareeya mid adag iyo mid kale taas kora markay dhacdo haddana waxa ku jirta qoloftan kala ku jirta iyadoo adayga badan xoog u badan dub baa lagu dhuftaa markii la kala jabinayo taa gudaha ku soo jirta la sii cunaya qolof yar oo dahaara saaran taasna wax dhiba ma leh waa lagu cunaa waa miraha saa u tirada badan oo maxaan ku raahdaa quruxda badan xoogaa gruubyadaas waxay isku naatiska waxa la yiraahdo gruubkaas oo dhan bay isleeyihiin waa noocyo fara badan dalba waxba haysta aniga lowska iyo cibtan ka haysana ilaahay qadartiis waana miro aad iyo aad u faa'iido badan faa'iidooyinkooda aan la soo koobi karin oo aan la tirin karin marka maanta waxaan rabaa wax yar inaan maxaan ku raahdaa aan ka hadalno miraha kan waa miro cajaa'ib leh waxay maxaan ku raahdaa ay leeyihiin fitamiino fara badan bay leeyihiin borotiin bay leeyihiin maxaan ku raahdaa vitamin E bay leeyihiin oo aad iyo aad isaguna u wanaagsan maxaan ku raahdaa energy bay leeyihiin energyga kiisa fiican bay leeyihiin waa miro haddaad cuntid cunno aad uga maarmi kartid oo 7 xabba kugu filan subaxii oo kale intaad habeenkii qoysatid haddaadan jajabin karin xoogaa waa adag yihiin inaad biyo ku dhigatid oo subaxii oo kale cuntid baa aad iyo aad u fiican wuxuu kale aad ugu fiican yahay lafaha dhaadheer kuwa balbalaaran miskaha waxaas oo dhan iyo kuwa lafaha bololaha aad ugu fiican yahay dadka osteoporosis la dhaho ama dadka lafa xanuunka qabo dhanna aad iyo aad buu ugu fiican yahay maxaan ku iraahdaa wax la soo koobi karo ma ahan ilowshaha dadka qaba ama dadka maskaxdooda ilowshaha badantay ama dadka gargariira oo gacmaha u gargariira iyagana aad iyo aad buu ugu fiican yahay weight loss weeye oo miisaanku dhimaa dufankiisa waa dufanka jirka u baahan yahay oo jirka oo dhan maaragtay uu ku shaqeeyo weeye wax aad iyo aad wanaagsan aan la soo koobi karin wax aan la soo koobi karin tirada badan baa ku jirta xididada oo dhan uu hagaajiyaa wuxuu ka dhigaa wax oo maaragtay level fiican maadaama fitamiino fara badan ku jiraan mas'ano kala qaadamayna all vitamins baa ku jira waxa kale oo ku jira fiberka kan cunnada caloosha iyo mindhicirada iyo ganka iyo intaas oo dhan caloosha gankeedu fiican baa ku jira waxa kale oo ku jira vitamin E wata idin sheegay calcium baa ku jirta lafaha fiican magnesium oo murqaha fiican baa ku jirta potassium idan lafaha fiican baa ku jirta folic acid oo kordhisa dhiig HB ga baa ku jirta potassium oo iyadana u fiican lafaha baa iyadana ku jirta zinki oo iyadana maqaarada iyo meel walba u fiican baa ku jirta all vitamins B baa ku jirta B complex baa ilaahay ku dhameystiray 7 xabbo habeenkii qoysanayaa hadduu habeenkii qoysto subaxiiba marka cunaya haddaad jajabsan kartidna waa jajabsan kartaa dadka waaweyn buu waliba aad ugu fiican yahay iyo dadka maxaan ku dhalinyarada iyaguna murqahooda waxaad dhisaya buu aad iyo aad ugu fiican yahay waxyaab la weey haddaad sokor qabtid sokortaada level buu ka dhigayaa haddaad dhiikar qabtid dhiikarkaaga level buu ka dhigayaa waxaas oo dhan buu ka dhigayaa maxaa kuu soo haray haddii aad qabtid cholesterol haddaad cholesterol qabtid wadnahaaga oo dhan iyo xididada soo galo dhan uu sifeynaya cholesterolka lagu sheegayo xididada waa kaas xididada baa saa u yaraanaya baruurta gudaha ka buuxinaysa markii baruurta gudaha ka buuxsan xididku waa xirmaya qofkuna dhiig wadnihiisa gaarmaysa saasuu ku dhimanaya waxa kale oo iyadana ay ku jirta maxaan ku iraahdaa maqaarka saa u jeedaan uma jeedaan laba nooc weeye noocaas horena waa marka qofku duuduumo nooca ku xigana waa marka maqaarka qofku uu giigsamo haddaad cuntid maqaarkaaga wuxuu noqonayaa maqaar oo shining ah oo tonic ah oo maxaan ku raadaya saas u giigsan buu noqonayaa haddaad saliiddiisa marsatinna waa la mid maxaa kaloo kuu soo haray wadnaha sidaan idiin sheegno wadnaha waa kaas oo ma jeedaan functionkiisa iyo shaqooyinkiisa wixiisa dhan buu hagaajinayaa maadaama xididadii uu hagaajinayo darbiyada xididada faasaliska kuwa dhuudhuuban kuwa maskaxda dhiigga ku shuba qofkii markii la dhaho dhiikar baa ku dhacay darbiyada xididada oo dhan buu adkeynaya wuxuu ka dhigaya xidido oo jirmi leh waan markii qofka dhiikarku ku dhufto aan hore aan ka qarxayn buu ka dhigayaa maasha Allah tabaarakallah weeye waxaa kaloo kuu soo haray maskaxda
maskaxda iyo maxaa ku rahdaa isay u shaqayso si aan caadi buu ka dhigayaa. Waxay siinaysaa dufan iyo nafaqo ilaahay ugu talagalay bay maskaxda siinaysaa. maskaxda xidideeda waa kuwaasaa sidaas bay maxaa ku rahdaa waxay siinaysaa oxygen, dufan, maskaxda dufan iyo waxa weeye sideedaba iyo biyo. dhakhaatiir fara badan waxaan arkay dad oo nervous qaba ama la dhaho dhakhaatiirta neurologistu ay kula taliyaan orado dufan cun. anaaba wiil iga xanuunsada waxaa la yidhi cunugan siibaa layidhi baruur iyo dufan iyo kurus iyo wax allaale waxaa siin karta siibaa layidhi. maskaxda waxay ku shaqaysaa dufan iyo waxay ku shaqaysaa iyo biyo. hadduu qofku biyaha yaraysto iyo hadduu dufankiisu yaryihiin qofka maskaxda waa qalalaysaa, xididada marka waa isku dhacdhacayaan. waxay aada ugu fiican tahay saasoo kale neerfayaasha dadka neerfaha qabana dhakhaatiirtu waxay dhahaan siiya iyo neurologistayaasha oo dhan way kula taliyaan in qofka la siiyo. jirkii oo dhan baa isku xiran, maqaarkii waa ku shayns garaysmayaa. maxaan ku rahdaa timaha iyaguna yaable soo ma jeedaan timaha markii hore iyo markii dambe saasay kala yihiin. saliid waxaa jirta la yirahdo almond oo hadaa rabto aad marsan kartid ama isagaad ka samaysan kartaa saliid. marka almondkaas timihiiba xataa saasuu ka dhigayaa. marka qofka wax uu korka ka marsado waxaa ka caafimaad badan wuxuu gudaha ka cuno. wax kastoo gudaha aad ka cuntid waxay ka muuqanaysaa maqaarkaaga, waxay ka muuqanaysaa maskaxdaada, waxay ka muuqanaysaa wadnahaaga oo si fiican u shaqeeya, timahaagii oo maxaa ku rahdaa qurux miiran noqda, xididadii oo maxaa ku rahdaa iyaguna balbalaarto oo ama baruurta ka dhex baxdo. daawo ahaan u isticmaal miraha kan dadka xanuunsan sii haddaad heli kartid wey, haddaad heli karin laa mushkila.